wararka caawa laga helayo degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen degmadaasi. waxaan halkaan kula wadaagi doonaa ma dagaal ayaa looga saaray ciidamada Itoobiya mise iyaga ayaa si isku deegaankaasi uga baxay. waxaan haynaa xog sax ah oo xaqiiq ah oo caawa naga soo gaaraysa degmada Doolow. mid ka mid ah wariyaasha deegaanka ku sugan oo la xiriirna ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamada Itoobiya ay ka baxeen degmada Doolow isla markaana ay isaga baxeen deegaankaasi dhinaca bari ee magaalada ayayna u jihaysan iyadoo aan la ogeyn halka ay saldhiga doonaan ciidamada Itoobiya ee caawa ka baxa degmada Doolow. wariyaheena oo inoo xaqiijiyay ciidamada Itoobiya ay ka baxeen degmada Doolow ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in wax dagaal ah uusan deegaanka ka dhicin isla markaana ciidamada si iskood ah ay isaga baxeen deegaanka. balse cabsi aad u xoogan ayaa jirta oo ku aadan inuu qarxo dagaal u dhaxeeya ciidamada Jubbaland oo deegaanka qayb ka mid ah ku sugan iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaaliga ah oo dhinaca kale magaalada kaga sugan. ciidamada Itoobiya oo xal qayb ka qaatay dagaalka ayaa lagu amray in magaaladu isaga baxeen. waa marka laga sawir qaato ciidamada Itoobiya oo xalay dagaalka qayb ka qaatay isla markaana deegaanka caawa baneeyay. xaaladda deegaanka Doolow ayaa caawa ah mid aad u kacsan waxaana saacad kasta suurtagal ah inuu qarxo dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo deegaanka ku wada sugan. qaar ka mid dadka deegaanka gaar ahaan dadka barnaamijyada ah ayaa isaga baxa magaalada waxaana laga cabsi qabaa in dagaal kale mar kale uu ka qarxo deegaanka. gobolka Gado ayaa waxaa la geeyay ciidamo aad u fara badan waxaana sidoo kale halkaasi ku sugan taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalka ah ee gobolka Gado Cabdirashiid Janan kaas oo dowladda u xil saartay in maamulka Axmed Madow meesha laga saaro. Cabdirashiid Janan ayaa si weyn u abaabulaya caawa ciidamada dowladda ee halkaas ku sugan isagoo ciidamo cusub qortay. lama oga cidda ku adkaan doonta gobolka Gado. Axmed Madow ayaa ciidamo aad u fara badan geeyay gobolka Gado si amniga deegaankaasi loo sugo. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa abaabul dagaal ka wada gobolka Gado isagoo ciidamo aad u fara badan qoraya si deegaanka looga saaro ciidamada dowladda ee halkaas ku sugan. ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutooyinka Haramcad iyo Gorgor ayaa qaybo ka mid ah deegaankaasi la geeyay. صح حاجة مقالة كده واحد وضمن كم غريناها جوع بدن واحد بدي واحد بعطينا لكن ما بسوي قريب أنا كمان بغني وحق وأنا حتى أنكح هذه هذا الأول من بدنا سوي واحد أنا هذا كان واحد يسوق أصلا مدافع بس واحد يسوق أصلا ما قال وين قف مركز هذا كله نقولها سنين هذه أنت الله إلا يو وبري بقرب وسوق جديو إلا شعب الملايين marka dagaalka xoogiisa halkuu ka socdo marka waa dhinaca kale dhanka Soomaaliya waan garta magaalada xajiidna la yeesho Soomaaliya marka dareenkaasi madaafiicda aad maqasheen maadaama dadka deegaanka tihiin dareenkiisa uu noqdo dhanka walahi aad iyo aad ka waxa islaam aniga kullu magaalada kala diilay soo qaxo yaa mid istaagay maahan dhanka sida camal oo la gaartana marka saakay xaaladda waa sidii isku socodka ama dhaqdhaqaaqa jiro ma dadka cabsi may dareemayaan saakay xaaladda wallahi wal wuu jiraa cabsi dareen wuu jiraa laakiin saakay isku socodkii waxa dhan alxamdulillah waa aad iyo aad u wanaagsan oo hay'adda Allah ku sabaa marka hadda Doolow yaa gacanta ku hayma kuwa Itoobiyaanka mise kuwa Soomaalida wallahi taan shidi kari صح markan guud waxaan baa xogaan waan karaa wax ku hayo ilaa hadda war ma hayo wallahi واقف marka ma aragtay qasaare dhimashada wax indhaha ay qabteen jira mashii kaan ma arag way gartay okay waa inta aan ka war hayo kulli hadii wax kale oo cusub ay jiraan insha Allah kulli waa soo xiriirnaa okay dabaq marka madaafiic wabeenniya mas hub yar baa horta madaafiic صح madaafiic marka xal gormo bilaaway والله سيدالكي iyo halkan meelaha ay iska taayay fasan habeen صح
عادي إنت إيه صغر حوالي قياس عملها وسoo gaaray